ciidan ka tirsan kuwa nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa maantay barqadii muddo kooban oo saacadaha hakad geliyay isku socodka qaybo kamid ah suuqa Bakaaraha degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. Arrintan ayaa timid kadib markii sida la sheegay ciidamadu ka shakiyeen gaarin nuuca leylada Soomaalidu ay u taqaano oo ku baakin garaysnaa goob aan ka fogeyn eeriyada masjidka Abaa Hureyre oo ku yaala gudaha suuqa Bakaaraha. ciidamada ayaa intii ay wadeen howlgalkan dadka ka celinayay inta u dhaxaysa laamiyada Howlwadaag iyo Aadan Cabde iyo wadada hormarta masjidka Abaa Hureyre oo kaga beegan koonfur galbeed taas oo laamiga wadnaha kaga dhacda dhabarka dambe ee iskuulka 22 November degmada Howlwadaag ee magaalada Muqdisho. ilaa iyo imika faahfaahin dheeraad ah lagama hayo gaariga ay ciidanku ka shakiyeen walow markii dambe ciidamadu dib u fasaxeen isku socodka goobihii dadka ay hakiyeen. muddooyinkii dambe ciidamada sirdoonka Soomaaliya ayaa ka howlgalayay gudaha suuqa weyn ee Bakaaraha iyaga oo qaybo ka mid ah suuqa ku leh fariisimo ay ku baaraan gaadiidka iyo dadka intiisa kale. isku soo wada duuba arrinkan ayaa ku soo aadaya iyadoo oo dawladda Soomaaliya muddooyinkii dambe howlo amni xaqiijina ay ka wado guud ahaan degmooyinka uu ka gooban yahay gobolka Banaadir.